kusoo dhawow channelka walaasha Marin Cali subscribe saar haddaad ku cusub tahay haddii aad ila joogtiin like dhac ku sii. Assalaamu calaykum asxaabtayda soo dhawaada walaalahayga muslimka oo arrinkan dagaalka oo raamo ku jira dagaal ma taqaanin horta dagaal ma kala dhax oo la dagaalada laba qoys ay is dagaalan dadku u horeeyo ku baa ma ka saysid dadku u horeeyo ku baa waan dhalinyaro Soomaa dhalinyaray oday waayeel ma isku dhimanaayay dad dhalinyaro ma isku dhimanaayay oo wiilal oo dhalinyaro meesha kan ugu yaraan 20 sano 25 sano 30 sano waxaan gaarayna meesha ku dhamaanaay dhalinyaray idinka xalkiin ma oo sanad kasta dhulka dhiciya lilay oo sanad walba dhalinyaronimadiina oo intaas idinko la eegaas ku baaysiin mis aqliga yeelinaysiin oo go'aan yeelinaysiin oo mustaqbalkiin iyo waqtigiina iska faa'iideysanaysiin yaa dhalinyarada oo labada qoys ka soo jeeda labada qoysba ka soo jeedaan la hadlayaanay labada qoys dhalinyarada ka soo jeeda labadaba in laga geeyaan raba warkan asxaabay iga geey labada qoys warkeeda iga geeyo adinka dhalinyara aqligiina iskaxdiina inta tirtiin wiligiin ma odayaan in la ka dhulka dhiciye in leh dhulka wariyaa markaad nabad heshid oo shaqaysid oo xoogsid wariyaa waa gadan wariyaa oo lacag shaqaysid dhul waa gadan wariyaa balood ku dhaganas gadan lacagtaada ku gooyni ya hadda ama Allah meeshis degantiin nool buugta ku haay shaqayso xamaalo oo maskaxdaada dhaliyo aqli fiican keen oo horumar fiican keen ma qof dil lagu wayna maalin walba adaan ku dhimanaa meesayte labada dhinac talada hoo labada dhinac oo cidaba labadiina dhinacba waa qaldantihiin labada dhinac oo cid oo labada waa qaldantihiin nimiyow dhalinyarada halaagina dhalinyarada unaxa dagaal martiin odayaal ma dagaalamayaan ganaaga ma dagaalamayaan dhalinyaradaas ay tahay naxa dhalinyaradaas unaxa idinkana aqliyeesh dhalinyaro aqliyeesh oo aqligiina maskaxdiina ha shaqaysaan isu dhaama maalin walba meel cilaah taagnaanin oo ordo waxaan dhul dhiciyaan indhiin dhulka dhicinays mada fidisana mada saxana mada ku hargala waraa 20 sanad noolaad oo 50 sano 30 sano 40 sano nooshe mu dhulkaas isku noolaad yaa magaad maanta dhiig ku galaysiin oo dhiig isku baaysiin oo labada ciidood ay dhalinyarada kale isku hor kacayso oo la isku laayna dhulaas cuni jirteen dhulaas caabi jirteen warmiyo si fiican u fikir dhalinyaro idinka la imbiin hayaa labada dhinac idinka la imbiin hayaa dadkan isu ma jeedaan dhalinyarada la hadlayaan dhalinyarada loo sheer garay arrinka qabiil isu dagaal saasa u dambeeyay marka anagana waa dadkeena inaan dhibaatada iska hor qabano iska qabano intaan la gaarin waxaas iska moosan darteedan u hadlaynaa walaalayaalow hadow dambeeyay sheekada waa xumaanaysa xigtay xigaalaa leeyahay arrinkaas qareeraa ma fiicno wanaag iyo walaalnimada aan jecelna inaan ku noolaana marka dhibaatada intay ku soo gaarnaa la iska moosay Soomaaliyeed waxaan intay ku soo gaarnaa la iska moosaa ka hadalka faraha badan waxa naga keenaa waxaa in aan la iska mooso oo arag intay soo gaaran ka hor la iska mooso walaalayaalow aan business sameyn oo ganacsi sameyn oo wax horumar ah oo anfacay nafteena iyo dadkeena iyo dalkeena ba anfacay aan helna dhul yaan la isku laaynin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawow channelka ma dhameeyay videoga ila dhamaadka miila joogto subscribe isaar walaasha Soomaaliyeed aan ahay aad u mahadsantahay.